jaamacadda adnaadan gaar ahaan kuliyadda afka iyo ilkaha ayaa adeeg caafimaad oo afka iyo ilkaha ka fuliyey magaalada Baligubadle ee caasimadda gobolka Hawd. Adeegan caafimaad oo ahaa mid tabarucaad oo bilaash ah ayaa waxa uu ka qabsoomay isbitaalka weyn ee magaalada Baligubadle, waxaana adeegaasi fulinayay macallimiinta iyo ardayda sanadkan ka baxaya kuliyadda afka iyo ilkaha ee jaamacadda adnaadan. ugu horeyntiiba halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha isbitaalka Baligubadle Cabdixakiin Maxamed Maxamuud iyo xubno ka mid ah maamulka jaamacadda adnaadan, waxaana yidhaahdeen waxaa halkan noogu yimid dhakhaatiir ka socda jaamacadda adna oo ah qaybta dentaalka oo ka kooban 11 dhakhtar iyo supervisorskoodii. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa in halkan noogu yimaadaan oo ay dadka ay si bilaash ku eegaan. waxaan rajaynayaa in dadka deegaankuna ay ka faa'iideysan doonaan insha Allah, fursad aad iyo aad u qaali ah insha Allah. wacyigelintii iyo waxyaabihii ka horeeyayna waa hore u dhamaadeen. imankana shaqadii baa la qaban doonaa saaka. marka dhakhaatiirta aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa, way mahadsan yihiin. waxaan rajaynayaa inay inta ay joogaan saacadaha kooban ay joogaan ilaa maanta inay uga faa'iideeyaan dadka wixii aqoontooda ah ay soo barteen. waan ugu mahad celinayaa sida tabaruca ee wanaagsan ay ugu shaqeynayaan. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda adna oo hawshan soo abaabulay isku soo dubariday oo gartay inay halkan isbitaalka Baligubadle u soo diraan. ka agaasimo ahaan iyo maamulka anoo ku hadlaya maamulkii heer gobol suduwaha wasaaradda caafimaadka, aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa, waan la shaqeyn doonaa, waan la shaqeynaynaa mar walbana soo dhawaada. halkan waxaan ku qaban doonaa insha Allah shaqadii caadiga ahayd ee qaban jirnay ee ahayd qaybta afka iyo ilkaha. adeegyada qaban doono ay dhakhaatiirtu iyo ardayda waxa kamid ah in ilkihii bila rajada la saaro, in la buuxiyo ilkihii rajada lahaa ama buuxsameeyay, iyo in aynu sameeyno maaritaanka ama sifaynta wax hadba loo yaqaano oo inaynu ka nadiifino ciridka dhagaxa ku sameysma. waxaanu leenahay dadka bulshada deegaanka degan inay ku soo dhawaadaan kana faa'iideystaan. waxaana kaloo mahadnaqaynaa agaasimaha isbitaalka iyo maamulka isbitaalka oo si fiican noo soo dhaweeyay, nala shaqeeyay, nagala qayb qaatay hawsha ballaaran. iyagana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. ka maamul ahaan oo jaamacad ahaan waxaan maanta adeeg caafimaad oo bilaash laga fulin doonaa isbitaalka. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa bulshada degan inay ka faa'iideystaan fursadda qaaliga ah ee ay u fidinayaan dhakhaatiirta ka socda jaamacadda adnaadan ee kuliyadda afka iyo ilkaha. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii loo qabtay adeegaasi caafimaad, iyagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen adeegan caafimaad ee afka iyo ilkaha. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. si fiican runtii waana loogu shaqeeyay ma sha Allah. ilkaha wax laga saaro iyo wax la sifeeyo iyo wax kale agabad kale loo qabtaba ma sha Allah si fiican ayaana loogu shaqeeyay ma sha Allah. ardayda aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa iyo doctorayso adnaadan dhakhtar aad iyo aad ayaan u mahadsan yihiin dhakhaatiirtan ka socota maama adnaadan Ismaaciil oo runtii aad iyo aad baahi weyn loogu qabay dhakhtarkan adnaadan oo aad iyo aad baahi weyn loogu qabay. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ardayda kuliyadda caafimaadka ee afka iyo ilkaha ee jaamacadda adnaadan ee sanadkani baxaya, iyagoo faahfaahin ka bixiya adeega ay u qabteen bulshadaasi. degmada Baligubadle waxaan ka fulinay hawlgal caafimaad oo ku saabsan afka iyo ilkaha, taasi oo dhakhaatiirtu si tabarucaad ah ugu qabanaysay dhammaanba bulshada deegaankan, iyaguna si fiican uga soo qayb galeen. barnaamijyada ama adeegyada qabanayna waxaa ka mid ah buuxinta ilkaha, saarista ilkaha, maydhista iyo tala bixinta caafimaad ee afka iyo ilkaha. runtii si fiican oo qurux badan bay noogu dhacday alxamdulillaah. waxaan u nimid inaanu fulino adeeg caafimaad oo afka iyo ilkaha ah. waxaanu maanta halkan kula kulanay bishino aad u tiro badan oo ka cabanaya xanuunada kala duwan ee ku dhaca afka iyo ilkaha. adeegyadanu halkan ku qabanay waxaa ka mid ah ilka saarid extraction ama waxa extraction loo yaqaano, buuxdin ilkaha la buuxiyo, ilkaha la maydho, daaweynta kala duwan ee ilkaha iyo tala bixin caafimaad. ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadnaqayaa supervisoradeeda nala socday iyo macallimiinteeda. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan bulshooyinka reer Baligubadle oo si aad baaxad leh noo soo dhaweeyay. guulada Cunaabi, MMTV.